Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khayraadka sharafta leh ku xidhan bartaana ku leenahay YouTube-ka iyo barashada shaybaarka soo dhowaada. Waxay noo socday casharaanteena imtixaanaha internal organs-ka ama xubnaha gudaha ee jirka bini'aadanka oo ay noogu dambeysay heart-iska. Maanta waxaynu soo qaadan doonaa insha Allah liver-ka. Sidii horeba aad nooga barateen waxaynu isweydiinaa 3 su'aalood oo ah liver-ku xagee buu ku yaalaa, shaqadiisa iyo xanuunada la soo darsa. Guud ahaan horta beerku waxa uu ku yaalaa dhinaca midig ee caloosha oo weliba xagga sare xigta. Waxaana ka hooseeya feedhaha qeybta midigta. Wuxuu ka sarreeyaa caloosha iyo mindhicirka korkooda ayuu ku yaalaa. Marka qeyb yar oo bidixda laga reebo, qeyb yar oo bidixda ayaa soo gasha caloosha iyo mindhicirka korkooda soo gaadha. Qeybtaasi waxa weeye waa location-kiisa function ahaan. Beerku maadaama xubnaha jirka kuwa ugu muhiimsan uu ka mid yahay, shaqooyin aad u muhiimana la'aantiis oo qofka bini'aadanka xaaladiisa caafimaad ay khatar geli karto. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu sameeyo waxaa ka mid ah xabka loo yaqaano bile duct-iga. Bile duct-iga oo isaguna ka qeyb qaata ama caawiya in la shiido ama la burburiyo dufanka. Waxaa kale oo ka mid ah kaydinta nafaqooyinka, inuu nafaqooyinka jirka u kaydiyo sida sonkorta ama glycogen-ka waxa loo yaqaano, fiitamiinada ay ka mid yihiin A iyo D iyo B12-ka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah macdanta birta ee iron-ta loo yaqaano. Sidoo kale wuxuu aad uga qeyb qaataa habeynta cuntada. Wuxuu beddelaa carbohydrate-ka isagoo u beddelaya borotiin iyo dufan ahaan ama u beddelaya si uu jirku ugu isticmaalo ama jirku uga faa'iideysto. Sidoo kale wuxuu kaloo sameeyaa borotiinada ayuu soo daayaa. Weliba kuwa ugu muhiimsan oo ka mid yahay ama kuwa ka qeyb qaata clotting factor-ka oo waxyaabaha xinjirowga dhiigga u sameeyaa. Sidoo kale wuxuu ka qeyb qaataa inuu la dagaallamo ama uu caawiyo la dagaallanka jeermiska iyo waxyaabaha jirka bini'aadanka soo gelaya. Sidoo kale inuu jirka waxyaabaha uu ka soo ururiyo wasakhda oo dhan beerka la mariyo uu ka saaro. Oo sababtoo ah haddii aad maanta wax suna ama wax aan fiicnayn aad jirkaaga u soo galaan ama sunta oo kale, markaba beerka ayaa qofka laga dareema. Sababta looga dareemana waxa weeye beerku waa meesha waxyaabaha aan jirku u baahnayn ka saarta ama sun ha ahaato ama wax kale ha ahaato. Jirka waxay u sii deysaa wixii nadiif ah ee caafimaad qaba, wixii kalena way ka saartaa dhiigga. Marka waxaan odhan karnaa beerku waa xubin aad u muhiim ah, aadna u firfircoon oo ka qeyb qaadata nolosha qofka bini'aadanka. Haddaba xanuunada ku dhaca beerka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah hepatitis-ka ama caabuqa beerka oo aynu naqaano sida hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Kuwaas oo dhan oo badan ay keenaan intooda badan fayrasyo. Waa xanuuno ku dhaca beerka. Sidoo kale waxaa loo yaqaano cirrhosis-ka ama beer dillaac waxa loo yaqaano ama beerka oo adkaado oo maxay ahayd tooley cirrhosis noqda. Sidoo kale waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ah fatty liver ama waxa loo yaqaano beer subaga ama inagu Soomaaliyeed aynu idhaahno aynu naqaano. Inta badan beer subaga waxyaabaha keena waxaa ka mid ah sonkorta ama cayilka ama cuntada dufanku ku badan tahay uu qofku mar walba cuno. Waxyaabaha kale beer ku dhaca waxaa ka mid ah liver cancer-ka iyo sidoo kale liver failure-ka inuu qofku iyana uu ku dhaco. Calaamadaha ugu badan inta badan qofka in beerkiisa xanuun ka jira lagu garto waxaa ka mid ah haddii jaundice oo kale jiro in jirkiisi ama huruud uu noqdo. Kaadida oo kale oo madow noqota, saxarada caddaan noqota, daal iyo haraad badan, lallaba iyo matag. Mararka qaar waxay dadku yiraahdaan madax xanuun zaa'id oo madax wareer oo kale ayuu qofku yeeshaa xilliyada uu beer xanuunka leeyahay. Calaamadahan waxay ka mid yihiin kuwo inkastoo mid walba ay xanuun gaar ah ay la taxalluqdo haddana waxay sheegaysaa waxyaabaha qofka in hadaad waxyaabahaas ku aragto oo kale calaamad beerka ay jirto. Sidoo kale waxaa jira shaybaadho qofka laga qaado oo enzymes beerku soo daayo sida loo yaqaano glutamate transferase oo kale ama gamma glutamate transferase GGT, GBT, GOT
kuwo kale alkaline phosphate iyo waxyaabaha loo yaqaano. Shaybaadhada guriga waa lagu ogaan karaa waxyaabana waxaa lagu ogaan karaa fiskaal ahaan oo kaleeto jaundice oo kale uu qofka hayo. Insha Allah maanta beerka intaasaynu ku soo gabagabeynaynaa casharkiisa guud. Haddii Ilaahay yiraahdo intaynu casharkan ka xigay iskugu imanayno nagu soo biir mar walba oo nagu dhiirigeli subscribe-ta si aan anaguna meel sare u gaarno. Casharaanta xanaan aan idinku soo gelino oo tayo fiican leh oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan insha Allah. Khayr badan rajaynayo dhammaan asxaabta meel kasta joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.